bismillaah kulanti wacan ku soo dhowaada mar kale mid ka mid a xalqadihii halkan kusoo gudbin jirnay ee gaashaana podcast. xalqadani waa tii saddexaad ee silsiladda taxanaha ee ku saabsan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saameynta ay ku leedahay nolosha aadanaha. xalqadii hore waxaan ku soo gebagabeynay ahayd duruuftii adkeyd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam asiibtay iyo saameynta ay ku yeelatay. geeridii awowii kadib waxaa kafaalo qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adeerkii abudaalib. mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay bilowgii wakhtigii adeerkii uu kafaalo qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo wakhtigii loo waxeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. mowduuca waxaa noo sharixi doona sheekh muscab. kusoo dhawow gaashaanle podcast. waan ku dhowahay gaashaanle podcast. baaraka allahu fiik. haddaan u beedho qeybta su-aalaha, su-aasha ugu horeysa waxay ku saabsan tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muxuu ka shaqayn jiray, xigmad maxaa noogu sugan? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وبعد. نبي عليه الصلاة والسلام كلكو يرى وحو كشقين جري أرجروها أرجو كشقين جري حولها يجري جري أو وحو أرجو أدون جري أضياد ريمكا أضياد وين ريمكا يأرجو جري نبي عليه الصلاة والسلام. taasi oo keentay oo suu yacni adeerkii abutaalib wuxuu ahaa oday weyn buu ahaa, ubad badanna uu ahaa, lacagtuna ku yarayd. maalqabeenada waaweyn qurayshta ka mid ma ahayn abutaalib. walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ku yaroo kartile, qof kartile oo dhiiran buu ahaa. walidaalika isla markiiba wuxuu ilaahay ku ilhaamiyey inuu ku noqon adeerkii culays kaloo saaran. marka wuxuu yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu bilaabo asagba inuu shaqeeyo oo wax soo rido, wax isaga ku filan, aw adeerkiina awlaadda adeerkiina suu adeerkii u garab joogsado oo garab u noqdo oo uu la koriyo ilmaadeeradii. waxaa taasi daliil u ah suu bukhaari raximahullah ku soo naqliyey. wuxuu yidhi xadiiskii saxaabigii radi allahu canhu cabdata bni xasnin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bucitha muusa wa huwa raaci ghanam wa bucitha daawuudu wa huwa raaci ghanam wa bucithtu ana wa ana arca ghanaman liahlii biajaada. wuxuu ihi muuse calayhi salaam wuxuu ilaahay diray isagoo ari jira, saasoo kale daawuud calayhi salaamna asagana waxaa la diray isagoo ari jira. anigana buu idhi ilaahay wuxuu i diray anigoo ari jira oo ariga ehelkeyga ari jira oo ku ilaaliya buurta la yidhaahdo ajaad. ajaad waa buur ku taala maka. ana buurta ari ku eegayo waana xoolaha dhaqo oo ari jira iyuu ilaahay subxaana watacaala ii waxyoodo goortaasaa lay diray buu idhi. taasina xikmado fara badan baa ku jirtaa, waayo ilaah subxaana watacaala ambiyada inta u badan wuxuu ugu ilhaamiyey amba ilaah ugu doortay. ilan waxa weyan ambiyadu ilaahay baa doortay. wastanactuka linafsi buu yidhi nabi muuse markuu ilahay ka sheekeynayay. ambiyada min yaraantoodu ilahay gacanta ku hayay oo ilaahay dhaqayay, inkastuu ilaah subxana watacaala yahay rabbulcaalamiin. laakiin ambiyada ilahi subxaana watacaala risaalaad baa lagu talagalay si khaasa iyuu ilahi subxaana watacaala xaaladooda u ilaalinayay. marka ambiyada ilahi wuxuu doortay inay ari jiraan xikmado fara badan baa ku salaysan. kow too horeyso waxa weyan waxay helayaan tababar. adhiga ninka dhaqayo adhigu waa ummadoo kale, maad aragta. marka tababar baa u ahayd, waayo hadhowtol waxaa u dambaysa inay ummad dhaqaan. marka maanta adhiga dhaqaheed sidii hadhowtole ummadda ay u dhaqaan. nuqdada labaad waxay tahay ninka adhiga jirow waa qof dulqaad badan, naxariis badan buu noqdaayo. waayo adhigu xoolaha marka la eego, geela marka lagu qiyaaso, lo-da lagu qiyaaso way ka liitaan. inay ka liitaan, maadaama ka liitaan waxaa noqonaysa wuxuu qofkan uga dulqaad badan yahay. qof sabir badan u baahanto adhigu. geela masalan marka la baro, masalan xeerada marka la xero gelinayo, tababar dhowr muddo badan marka la laaliyo geela kuway fududaataa arrinkoogu marka la xereynayo waxaasoo ku dhan problem badan ma keenaan. laakiin adhigu eku mar kaste waa kan baad caymaday, kan baad soo jiidi, kan baad xareyni.
waa mashaqad ka socota arigu maaragtay midda kalena waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu haddana bukhaari kitaabkiisa ku soo sheegay allahuma salli calaa nabiyina maxamed xadiiska miqdaam uu soo wariyey radi allahu canhu can rasuul sal ly salam wuxuu yihi ma akala axadun طacaaman qatu khayran min an yaأkula min camali yadihi waina nabiy allahi daawuuda calayhi salaam kaana yaأkulu min camali yadihi buu ihi qof ma jiro buu ihi ka cune cunto ka khayr badan waxay gacantiisu soo riday nebi daawud calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ka cuni jiray waxay gacantiisu u soo rido maaragt walidaalika halkaa wuxuu ku sheegay allahuma salli calaa maxamed alxaafid ibnu xajar wuxuu yihi waxaanu ka faa'iidaysanaynaa buu yihi xadiiskaas fadliga camalka shaqada gacanta loola tegayo oo qofku toos ula mubaasharayo laftarkiisu gacantiisa muruqiisa oo ku riday bariiskiisa yaanu ka faa'iidaysanaynaa weli inuu ka fadli badan yahay shooqooyinka kale uu qofku gacantiisa ula tegayn asagoo gurigiisa iska fadhiya bishaarka ugu imanaya sidoo kale xadiidkan aanu soo sheegnay wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay nebi daawud calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wa ina nabiy allahi daawud calayhi salaam kaana yaأkulu min camali yadihi wuxuu leeyahy halkan alxaafid ibnu xajar kitaabka fatxiga ku tilmaamaya sharxiga xadiiskan fawaa'id waxaa ka mid a eedna xusida uu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ku xusay nebi daa'uud xadiidkan waxay noo caddaynaysaa buu yidhi fadligeedna waayo nebi daa'uud calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khaliifadii ilaahay buu ahaa oo ilaahay baa yidhi waxaan kaa dhigaynaa khaliifatan fi lardi baan kaa dhigaynaa walgeli nebi daa'uud calayhi salaatu wasalaam isagoo khaliifadiya oo boqor ah uu ka reeyay inuu bishaar iska qorto oo bishaarka kac oo noloshiisa iyo wuxuu u baahan yahay oo ku intifaacsado laakiin nebi daawud wuxuu ka fadilay inuu boqortinimada iyo khaliifada lacagta ka soo galayso wuxuu ka fadilay inuu muruqiisa malo uu gacantiisa ku soo rito wuxuu cunaya isagu marka cunustiisii wuxuu cunayay uu cabayey wuxuu ka yeelay lacagtaas wuxuu ka heli jiray wuxuu gacantiisa ku samaynaya midda saddexaad qofku inuu muruq inuu maasho oo xoolihiisa soo rido waxa ma dhaawac yeelayso tawakulka qofka ilaahay tala saaranayo waayo dadku waxay moodaan dee ilaahay baa ilaahay risiqa u qor caloosha hooyanaku ku jirno mise laakiin taa kama dhagno inuu qofku fadhiyo risiqiisu imanaya kama dhag qofku inuu muruqiisa maalo oo dadaalo oo wuxuu kare u soo rito kadibna ilaahay u tala saarso barakadii wixii soo baxayay marihii oo ilaahay u tala saarto tala saarashadu waxaa ka horeeya allahuma salli ala maxamed muruqmaalka kowa kadib baa ilahay u tala saaranaysa qofku hadduu yidhahdo ilaahay uman tala saarani kadibna waan iska fadhini ma istawi ma shaqaynayso maqbuul ma aha marka xadiiska waxaanu ka faa'iidaysanaynaa in ambiyadii ilaahay uu soo dirtay dadku ilaahay ku jeclaa dadku ilaahay ummadda ka dhex doortay inay dhaqaaqi jireen ay beriis beriiskugu ridanayeen ilaahayna tala saaranayeen saas weeyaan nebigana ilaahay subxaana watacaala waa kii amro waa kii ka yidhi fabihudaahu muqtadih hanuunkooga ambiyada adna ku tusaale qada laga yidhi anakana maadaamuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tusaale noo yahay ambiyaduna tusaale noo yihiin waxa weeyaan qofka daaciga ama qofka rabo inuu ummadda wax ka bedelo amba bulsho ahaanba amba qofkii rabo inuu wax khayr risiqiisa meesha ugu khayr badan inuu ka rita uu rabo waa muruqmaalka weeyaan inuu qofku dhaqaaqo oo shaqeeyo oo maalin walba uu kalaha uu soo rito bariiskiisa siduu helo wuxuu cunay wuxuu cabeeyey taasaana wax weeyaan wax la cuno wax la cabana taasaa ugu fadli badan saanu soo sheegnay jazaakum allahu khayran sheekh muscab